كلي برنامج كحكايات كقصوين كمرتدى أي مادة وبرنامج كي كنت شاكية شاكو وتطبط بالبهات دايو كلا أنه هو ذي جي سمر إنه كان الله حدنا التلفزيون كا سومالي نيوز تي في هاي لابين بلنتين خصوصنا هذا كلن كنا شاكوين كان إذا يتطبط كان ودورة طهورة وحاي مقعد اللي ها مينا سوقورين ومينا سوقورين dhaxtaalka sheekooyinka labada sheeko waaweyn waxaa leedahay sheeko yar oo yana leeyahay waan looga baran sheekadeena labaad ee dheer waxay noqonaysaa ha isku keen xanibin Xuseenow ha isku keen xanibin barnaamijkan konton sheeko oo aan filayo inuu aad inii xiiso geliyay waxaan idin leeyahay hordhiciisa idii sheegaya dhaxtaalkiisa iyo gabagabasidiisa rayd xusuusin doona marka ku soo daashaan hawsha ee shaqo dheer gashaan idinkoo daashan ku soo hoyataan aqaladiina fiidka u baahan waxa idinka dejiyeen warwarka iyo walaaca nolosha iyo shaqada haysaan aan idin hay'adda wadaha kula dhicina carada caruurtiin iyo dumarkiin soo qaata konton sheeko qoraalkiisa waa buuggii sheekooyinkan ay ku qorayeen laba ka mid oo akhrista farxad kula saacada kula caweeya caruurtiina haddaynu uga hadalno toddobaadkan iyo sheekooyinkan idin hayo ta koobaad waxa la yiraahdaa miina soo guurin nin liyaho Axmed oo dhalinyaro ah dadka waqtigu haya danyara oo arad iyo jiifiga ka muuqato markuu meelaha marayo hawl uu qabtaa ay tahay mid uu ka helo saddexda xilli cuntadiisa oo ahayd bakhaaro iyo meherado Turkiye leeyahay oo xidhiir la lahaa oo kolba waxay u baahdaan magaalada uga dirta ayaa wuxuu seexan jiray sandaqad ku taala magaalada meel ka yara fog oo nin Turkiye ragga meherada leh uu jago ku leeyahay oo halkaas sandaqada uga dhistay si uu ilaashado jagadiisa ayuu Xuseen habeenka ku luudi jiray oo ku oyin jiray sandaqada dhexdeeda laba maqsin bay ahayd maqsinka jiifka waxa u dhaxyeelay Faynus habeenkii markuu yimaado uu shito salligan caawda jeex kamida oo guglado busto uu dhex galo iyo go la inta uu gashay baa kala ha oo ha surwaal shaad cimaamad yar iyo laba kabood oo sandala oo aan maanta waxa ku falayaaba jirno gooqay marka uu jiibsanayo ayuu macaawista iyo go'aan dhex gali jiray bustaha jeexaana huwa jiray salligana ku seexan jiray habeenada kamida isagoo hurdo ku jira saqdin dhexe ayaa waxa uu maqlay tuug albaabkii cawjad ku soo jabinaya qacdi buu maqlay indhaha tuu kala qaadayba waxa soo galay nin tiila oo xoogiisu xaada oo dhalinyaro oo tooj weysita isagoo kuma qaban toojkii wuxuu ku eegay sandaqadii oo soo dhaqaaqay Xuseen hoostu ka eegay oo Faynus iftiinkiisa ku eegay mise waa nin laba laxaada Xuseen waa ninka diifaysan ee taalka baran ee ay ka sheekay wuxuu hadda ninkan isku qaata hada lafaha wax ku yeeli iska daa isagaaba markuu arko guriga ilaa waxba oolin iska tagiye Xuseen wuu isna markuu toojka ku qabtana indho isku qabtaa ninkii kamuu tagin markuu aqalkii eegay ee waxba ka waayay ayuu shaariye surwaalkii imaamadii iyo kabihii isku duubtay bustiina uu ka dulqaaday albaabku kala baxay intii isku duuban Xuseen kamabuu dambeeyay intuu kacay ayuu isna macawistii guntaday gooyina huwaday salligii la laabtay oo halkan gashaday Faynuskina soo qaatay tuugii soo dabagalay tuugii markuu cabaar socday eego sanqarba maqal waxa arkay Faynuskan daba socda kolba suri buu ka laabtaa kolba meel buu ka leexdaa wuu ka hadhi waay wuu gartay markii dambe inuu yahay ninkii alaabta soo qaatay meel dhagax salix yaalo ayuu tuugii ku fadhiistay Xuseen wuu soo horkada loobsaday isagoo go iyo macawistii guntan salligiina soo dhigay Faynustiina socdo si war xagga ku socota masuul miina soo guurin Xuseen baale tuugii ba qosol ku dhuftay oo go'i iyo intii isku duubnayd imaamadii waxa la yeeshay surwaalkii kabihii isku duubnaa bustihi oo raxmayna soo guurna qaado waxa naga tag miinaan soo guurin
وبرنامجك حكايات قصوين كمرتدى إيه مادة يا سومالي نيوز تي في يا كونتن شيكو يا شيكو لحتالك waxay inuu ka dhiganaynaa inagu waa sheeko iyo la qosol leh bal looga baran waa su'aal sheekadii hortaadii weydiiyay idanka daawadayaal ma u fiirsateen hablaheena ma egtan dumarkeena intooda badani marka ay magaalada marayaan ee ku socdaan sariibada ama ay tagayaan dukaamada iyo macdarrada ama ay supermarketyada galayaan intooda badani lacag bay gacanta ku wataan ama ha noqoto tadalka ama ha noqoto doolare mid yar ha noqoto ama mid badan leh maba qariyaan gacantiisa ugu weysitaan maxay u qarsan waayeen lacagta maxaa ku jawaabteen waxa laga yaabaa intii nabadgelyo leedin de waa nabadoo cidna waan ka baqayn maaha jawaabtu waxa weeyaan waa looga baran maxaa looga baran bixintaan looga baran hatta masaakiintan weydiisani raggu saatay qaadaan waxay ka baqayn la shaqado oo gacanta ku qaadan oo marka liya barnaamijka konton sheeko iyo sheeko sheekada labaad ee aynu toddobaadkan iyo ku hayo barnaamijkeena xiisaha leh oo konton sheeko iyo sheeko waxa weeyaan xuseenow ha isku keen xanibin meheradaha dadka macaamiisha yimaada inamada ka shaqeeya way bartaan khaasatan hodheelada wax laga cuno nin waliba waxa jeebkiisu gooyo iyo damcadiisa ee uu jecel yahay bartaan nin danyara haddaba sheekadeenu maanta danyartay u badan tahay waa saaxiibadee waan jecelay ilaahay waxayna wada siiyeen nin danyara oo waqti ku hayo bil camala dalka muddo yar joogay oo dalalka dibadda saarkan hay ka yimi waliba Afrika af Soomaaliku ba dhibayo oo ay dadkuna ugu yeeraan qoomiyada kale iyo halkii uu ka yimi oo dhaqan ahaan isla keen la dalka camal la aan haynin duruuftuna ku adag tahay ayaa waxa uu soo helay waxay aan jireen waxaan dhaafsiisnayn saddexda xilli maqaayad tagi jiray harakow buu jiray markuu soo galay Axmed baa loo oran jiray Xuseen baa loo oran jiray markuu soo galay maqaayadda inanka mudalka uu yaqaanay ayaa Xuseen maxaad sheegtay harakow Xuseen keena su'aal bal ma weydiin jirin subax haddaba isagoo ku socda maqaayadii oo haysto wuxuu harakowga siisto ayuu dukaan sii galay balwad buu lahaa oo sigaar ku cabi jiray wuxuu jeclaa markuu cuno inuu xabad cabo suntaasuu jeclaa marka dukaan buu galay oo laba xabo sigaar ku iibsaday labada xabo sigaarka ayaa markay baakili ku ritaan lama siiyeen nimanka cabaa marka labadii midho waxa loo dhiibay markuu ka soo baxay ayaa jeebkiisu dhaqaalaysanay ka baqeen buuru ku daatay hadda sababkiisa u tiri maayo jeebku u turaya ayaa wuxuu aagaagay baakin marano wadada yaala intaan dukaankii kaba fogaan buu xaalay baakin malan baakirkii buu isri iskaag mar wax qoynin ku jiraan intaan sigaarkaan isku riday laba wax wasakhi baakirkii buu raxay mise $1 baaba ka soo dhacay waaba $100 Xuseen dhulkii baa ku yaraabay labadii mid ku ritay sigaarka baakir ku riday $100kiina jeeb ku ritay isagoo faraxsan buu intuu soo socday tala gaadhay wuxuu yiri maanta horta harakowgii waa inaad ka talooda nin waliba meesha bugtay isagii balbashaay wuxuu yiri harakow maanta cunin beer buu ilqabay maqaayadii markuu soo galay ayaa inankii Xuseen baadigii baa sura harakowgii Xuseen keen bas waa naga taawariya beerikan magaashay naga daaw sentay beer ka bixi kartay harakowgii Xuseen keen bas waa ma jirtaa beer nooken inankii daba xay maqlay wali Xuseeno waan ku garaynaa isku keen xanibin beer iska bixin karin maysid waan haysta lacagta kii maqalka la hadlay wali Xuseen kaata meherada naga kharibin harakowgaaga yaala harakowgaaga cun Xuseen wuu iskartay markaa dadku waxay arkeen dharkiisa iyo itaalkiisa $100 buu soo saar markaas ay ka soco beerka Xuseen beerka loo keeno ha isku keen xanibin xikaayadka qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada inoo dhaxa balanteenu waa daawashada barnaamijka iyo Soomaali News TV iyo konton sheeko iyo anigoo idin leh ha ilaabina balanteena xusuusnaada kulankeena